بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدى الصوماليد وإذ السلامي وولاشين آمن لك أوفيشيال عاوة وحان إذين وذا أصحابي عمير بن وهب وأنا قصوين كان إذين كسو شيكيني ما شاء الله سياد معركته حصوصة هدي لهي رهدو إذ والبمركا channel كيغا عركتها سيقود بس إن شاء الله عمير بن وهب عاوة كشيكي سنة قصدي رسولك يساق dhexmartay Umar wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dagaalkii Badr isagoo la safnaa gaalada nasiib wanaag kuma uusan dhiman laakiin waxa lagu qafaashay wiilkiisa Wahab oo gacanta u galay muslimiinta yaani Umar markii hore uu gaalka ahaa wuxuu ahaa nin aad muslimiinta iyo nabiga kaleey salaatu wa asxaabta u dhibaateeyay buu ahaa marka dagaalkii Badr baa wiil uu dhalay lagu qafaashay oo Wahab la yiraahdo عمر wuxuu ka cabsan jiray in ay muslimiinta u qabtaan macnaha uga argudaan dhibaatada uu geysan jiray muslimiinta aawadi wiilkiisa dhibaatada uu aabihiis u geysan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa waaye wuxuu Umar ka mid ahaa kuwii sida aadka ah u cadaadin jiray nabiga iyo asxaabtiisa maalmaha ka mid ah ayna tahay goor subax barqin ah ayaa wuxuu Umar aaday kacbada si uu u soo dhawaafo kacbada isla mar ahaantaana uu u barakaysto sanamiyadeeda yaani waa xilligii iyaguna ay wax ku lahaayeen kuwa gaaladana ay kacbada wax ka tagi jireen markii uu yimid kacbadii wuxuu arkay Safwan bin Umayya oo ag fadhiya dhagax Xajrul Aswadka Umar ayaa salaamay Safwan isagoo ku yiri subax wanaagsan Safwan ayaa u jawaabay Umar isagoo leh subax wanaagsan Umayro wuxuu furfuray sheeko waxay isla soo qaadeen jabkii iyo dhibaatadii ka qabsaday dagaalkii Badr gaalada lagu jabiyay moogtaa waxay tiriyeen dadkii la qafaashay oo ay qafaasheen muslimiinta waxay si murugo leh uga sheekaysteen dadkii gaalada ahaa ee ku dhintay dagaalka dabadeedna lagu guray ceelkii weynaa dhexdiisa Safwan ayaa hadalkii qaatay oo yiri wallahi khayr kuma gadaashoon wallahi khayr kuwa gadaashood ma ahaanin muslimiinta buu habaaraya yaani Umar ayaa u celiyay oo runta wax yar ayay aamusnaayeen kadibna Umar ayaa yiri haddayn jirin deyn laygu leeyahay oo aan cid iga gudda aan jirin iyo caruur aan uga cabsanayo cayd iyo dayac daro waxaan aadi lahaa Maxamed nabiga kaleey salaatu wa salaam sheegaya si aan u soo dilo yaani deyn laygu leeyahay wax iga gudana ma haysto ciyaalkiina wax ii koriya ma haysto haddaan inta heli lahaa qof ii sameeya waaba u tagi lahaa Maxamed naftirkiisa soo dili lahaa nabiga kaleey salaatu wa salaam sheegaya si aan u soo dilo wuxuu haddana si hoos ahaan u yiri haysashada ay haystaan wiilkayga sababteeda ayaan saa u sameyn lahaa Safwan ayaa hadalkii ka faa'iideystay oo wuxuu Umar ku yiri Umayro waa tan koowaade deynta lagu leeyahay aniga dusha saartay oo ana ka gudaya tan labaad ee ah iyalka aniga ayaa ku kafaala qaadaya noloshooda oo waxay wax la wadaagayaan caruurtayda waayo maalka iyo hantida aan haysto ayaa ku filan dhamaantood raashinka ay cuni lahaayeen macnaha intaba ana ku sameeyay orodoo macnaha nabiga soo dil Maxamed bay dhigi jireen iyaga nabi uma aha moogtahay la waa gaalo Maxamed soo dil ana intaba kaaga damaanad qaaday amal haddaba Umar ayaa hadalkii u riyaaqay oo wuxuu Safwan ka codsaday in hadalkan uu ahaado qarsoodi yaani labadooda ka dhaxaysa Safwan wuu ogolaaday Umar wuxuu ka dhaqaaqay meeshii uu fadhiyay ee kacbada isagoo cadaawad iyo xiqdi yaani aad u weyn u haya rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa Umar wuxuu u diyaar garoobay sidii uu u fulin lahaa ballantii uu qaaday isagoo diyaarsaday qalabkii iyo gaadiidkii uu ku safri lahaa dhinaca kale wuxuu xirtay seeftiisii sunta marsanayd dagaal buu ugu talagalay in nabiga kaleey salaatu wa salaam ka soo takhaluso Umar wuxuu u safray magaalada Madiina nabiga kaleey salaatu wa salaam Madiina markaa jooga iyagana Makay joogan Makuu ka soo safray Madiina uu soo safray wuxuu u safray magaalada Madiina isagoo doonaya inuu soo dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam
markii uu yimi magaaladii wuxuu aaday dhinaca masjidka halkaasuu uu joogay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu soo dhowaaday meel u dhow iridka masjidka ayaa waxaa arkay cumar binu khadaab oo markaa la fadhiyay qaar ka mid ah asxaabtii isagoo ka sheekaynaya dagaalkii beder iyo wacdarihii ay ku dhigeen gaalada iyo siday usoo qafaasheen qaar ka mid ah gaalada yacni iyaguna farxadoodii ka sheekaysanayeen muslimiinta markaas layntii ay laayeen iyo weliba sidii uu allaah ugu manaystay uguna gargaaray sida aadka weyn cumar binu khadaab ayaa wuxuu deymooday ama fiiriyey dhinaca masjidka isla markiina wuxuu arkay Umayr bin Wahab oo ka soo degayay ratigii uu saarnaa isagoo sitaa qalabkii dagaalka Umar bin Khadaab markaa muslina iyo Umayrkii dagaalka uu socday inuu nabiga dilo u socdo gaala marka Umar bin Khadaab way bashaakada waxa wali wada Umar ayaa intuu soo booday yiri isagoo argagaxsan eegan waa adawgii alle ee Umayr bin Wahab wallaahi waxaan shar ahayn lama iman Umar wuxuu ku yiri ragii uu la fadhiyay la socda marka uu u galay rasuulka sallallahu alayhi wasallam idinkoo ku hareeraysan kana digtoonaada inuu dhagro ama macnaha uu khiyaano ama dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmay Umar bin Khadaab hase yeeshee Umar wuxuu markiiba u galay rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo ku yiri rasuulka Ilaahay waxa yimi adawgii alle ee Umar bin Wahab isagoo xiran seeftiisii sumaysnayd umalayn maayana inuu u yimi waxaan ahayn shar rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri isoo galiye hadaba Umar wuxuu soo aaday Umayr isagoo qabtay khamiiska uu qabay alla Umar geesi buu ahaa moogta Umar bin Khadaab saas u soo gilgilay oo khamiiska intuu soo qabtay macnaha ila rasuulka uu diray moogta khamiiska uu qabay kuleetigiis intuu ku soo dhigay seeftana wuxuu kula xiray qoortiisa kadibna wuxuu ula yimi rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani isagoo maca seeftiisii xiray kuleetigana saa u haya wuu soo kaxeeyey kolkii uu arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu sameeyey Umar wuxuu ku yiri siida Umaro rasuulka wuxuu Umayr ku yiri isoo dhawo ila Umar xanaaqsan ba soo jiiday moogta marka rasuulku ka qabtay xir Umar yani sidan ka daa wuu soo dhaweeyay rasuulka ma sha Allah qof naxariis badan buu ahaa gaal iyo muslim buu naxariisan jiray wuxuu yiri soo dhawow Umayr wuxuu u soo dhawaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yiri isagoo ku yiri subax wanaagsan Umayr bin Wahab wuxuu u soo galay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri isagoo salaamaya rasuulka subax wanaagsan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay ilaah wuxuu nagu maamuusay salaan ka khayr badan salaantaada waana salaantayda ay isku salaamaan ahlu jannaha Umayr wuxuu yiri wallahi adigana kama fogid salaanteena يعني ما هو احترامي سلامة المسلمين تباركسا انت كذب رسولك صلى الله عليه وسلم وحو عمير ويدي سببت ويمي يعني انه لصي مرماو ما قربين حد يقول تميد بيري سلامتي بكو خبصة موقتها عمير وحو يري وحانو ايمي اناد يسو ديسان ويركيغا oo adiga qafaalateen dagaalkii Badr rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay waxa ku xambaaray inuu seefta wato hadiiba uu u yimi in wiilkiisa loo soo daayo Umayr wuxuu yiri inkaar Allah ku rido seefo dhan waayo maxay noo qabatay oo tartay dagaalkii Badr yaani uu isbedelay sheekadii ba sheegi karo waxay isagay Safwaan ku soo heshiiyeen nabiga uma sheegi karo marka wuxuu yiri macnaha maxay ba seefta ii qabanaysa dagaalkii Badr ba iska kicilin weyn oo kale haddaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u sheegay sababta uu yimi rasuulka uu waramay marka Umayr oo Ilaahay waxyi intuu ku soo dajiyay u sheegay sirtii iyo waxay ku soo heshiiyeen isagay Safwaan wuxuu yiri rasuulka wuxuu u sheegay sababta uu u yimi inay ahayd inuu dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam arrinkaasna waxa loogu sheegay si waxyi ahaana wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam Umayr ku yiri adiga iyo Safwaan ayaa waxaad fariisateen meel u dhow dhagaxii ku agiilay Kacbada dabadeedna waxaad isku soo qaadeen oo aad ka wada hadasheen dadkii gaalada ahaa ee lagu laayay dagaalkii Badr adiga waxaad tiri hadii aan jirin lahayn deen laygu leeyahay oo aan jirin cid iga gudda iyo ilmo aan u cabsanayo ceyd iyo gaajo inay u dhintaan waxaan u kacitami lahaa
sidii aan u soo dili lahaa maxamed rasuulka sala allahu calayhi wasalam hase ahaatee safwaan ayaa kaa xambaaray deyntaada iyo ciyaalkaaga si aad aniga ii soo disho laakiin ilaah ayaa iga kaa ilaaliyey cumayr afku kala qaaday oo waxaa ka soo haray fajac iyo yaab dabadeedna isagoo aan hadal kale odhan ama aan dhihin ayuu wuxuu yidhi waxaan qirayaa inaad tahay rasuulka ilaahay because safwaan hadalkii kusoo wada hadleen markii horuu ku yidhi cumayr yaan labadeeni keliyaha aad wuu yaabay yaa soo gaarsiiyo sir rasuulka hadalkii iyo waxaad kusoo tashateen cumayr waa muslim cumayr wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi rasuulka ilaahayow waxaan ahayn kuwii kugu beeniyey waxyiga xagga samada lagaaga soo dejiyey waa qur-aankee hase ahaatee arrinkan aad hadda ka warantay ee ahaa wixii aan ku wada hadalnay aniga iyo safwaan cid aan labadayada ahayn ma ogeyn wallaahi ayaan ku dhaartay waxaan yaqiinsanahay inuusan warkan kuu keenin axad aan ka ahayn ilaahay waxaa mahad iska leh allihii i waafajiyey inaan kuu imaado si markaas aan u qaato diinta islaamka cumayr wuxuu ku dhawaaqay shahaadada sidaasna ayuu ku islaamay allahu akbar muslimiintii oo ku farxay islaamnimadii cumayr nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu asxaabtii amray inay cumayr baraan diinta iyo barashada qur-aanka isla mar ahaantana ay u sii daayaan wiilkiisii wahab muslimiintii si aad ah ayay ugu farxeen islaamnimada uu soo islaamay cumayr ilaa uu cumar binu khadaab radiallahu canhu ka yiraahdo doofaar ayaan ka jeclaa kolkuu cumayr u geliyey rasuulka yani markii hore uu raadinayay rasuulka doofaarkan ka jeclaa buu yidhi nacaybka u qabay macnaha cumayr laakiin buu yidhi maantase waxaan ka jeclahay qaar ka mid ah caruurtayda wixii intaa ka dambeeyey cumayr wuxuu baran jiray diinta islaamka isagoo markaasna laabtiisa ka buuxiyey iftiinka qur-aanka cumayr waxaa la ahayd maalmahaas uu baranayay qur-aanka maalmihiisii ugu qaalisanaa intuu noolaa taasoo hilmaamsiisay magaaladii maka ee markaa uu hore ka yimi iyo dadkii uu ku noolaaba uu ilaaway ninkii safwaan iyo sheekadiisii iyo meeshii uu ka yimi iyo ciyaalkii uu ka yimid kulli wuu ilaaway diintii baa macnaha la sii macaanaatay barashadeedii dhinaca kale safwaan wuxuu ahaa kii naftiisa ugu sheekeeya iyo didiilooyin markii uu diray cumayr wuxuu islahaa warbaa ka imaan doono oo nebiga inuu dilay baa lagu soo sheegi doonaa moogtahay markaa safwaankii magaalada maka kusii haray waa didiilooyinba naftiisa ugu sheekeynayay oo wuu faraxsanaa aan waxna ka jirin ayuu isugu sheekeyn jiray isagoo dadka ku oran jiray ku bishaaraysta ilaa laba hadal sir bay isku ogaayeen moogta laakiin bishaarada way soo gaari doontaa buu dadkii ku leeyahay ku bishaaraysta khabar weyn oo idin hilmaamsiiya dhacdadii dagaalkii Badr yani dagaalkii Badr gaalada waa ku jabeen marka waxaad ku ilowdaan ayaa imaan doona ayuu leeyahay maba oga marka inuu Cumayr muslimay ninkii uu dirayba inuu muslimay ma oga hase ahaatee markii ay ku dheeraatay Safwaan maqnaanshaha Cumayr ayaa wuxuu bilaabay walwal iyo walaac isagoo weydiin jiray socotada qofkii macnaha ka yimaada Madiina ka soo gashay magaalada Madiina inkastoo uu saas ahaa haddana ma uusan heli jirin wax jawaab ah oo shaafisa qofkii ka yimaada war Cumayr ka waran buu dhihi jiray maalintii dambe ayaa waxaa magaaladii yimi nin ka soo sheegay inuu Cumayr islaamay Safwaan khabarkaas iyo warkaas waxay ku noqotay mid lama filaan ah waayo Safwaan marnaba ma filaynin in uu Cumayr uu islaami doono haba islaameen waxa dunida jooga oo dhan macnaha Cumayr sida uu diinta gaalada ugu adkaa kama u filaynin inuu muslimi doono hadday dadku dhan muslimaan macnaha Cumayr inuu islaami doono kama u filaynin laakiin qalbigiisa Ilaahay baa bedelay Cumayr wuxuu isaga jiray barashada diintiisa iyo xifdinta Qur'aanka ilaa uu ugu yimi maalintii dambe rasuulka ayuu u yimid isagoo ku yiri rasuulka Ilaahayow waxaa tagtay muddo fara badan oo aan ahaa kii damiye nuurka alle yani muddooyin fara badan baan gaal anoo ah muslimiinta dhibi jiray oo nuurka Ilaahay aan damin jiray isla mar ahaantaana aad u dhibi jiray oo u cadaadin jiray wixii sheegtay islaam ama muslimiinta oo dhan sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaad ii idinto macna amar aad ugu siiso inaan aado magaaladii Maka hadda wuxuu Cumayr ku fikrayay inuu Maka intuu ku noqdo ummadii soo islaamiyo geesinimadii uu markii hore muslimiinta kula dagaalamayay inuu hadda gaalada kula dagaalamo
si aan quraysh ugu yeedho buu yidhi diinta islaamka haddii ay iga yeelaan waa sidii wanaagsaneyd wanaaggii taa u baahnaa laakiinse haddii ay iga diidaan waan dhibi u cadaadin sidii aan markii horeba u cadaadin jiray muslimiinta nabiga sala allahu calayhi wasallam wuu u fasaxay cumar inuu qabto ama aado magaaladii maka cumar wuxuu u safray magaaladii maka wuxuu u tegay ninkii saaxiibkii ahaa ay ahaayeen safwaan gurigiisii wuxuu ku yidhi safwaanow waxaad ka mid tahay madaxda quraysh sidoo kale waxaad ka mid tahay caaqilada quraysh ee caqliga leh haddaba ma waxay kula tahay waxa aad ku sugan tihiin ee ah cibaadada aad caabudaysaan dhagaxyada iyo aad marna gowracdaan oo gowraca aad u gowracaysaan sanamyada in ay caqliga u yeelayo in uu waxani diin yahay haddaba anigu waxaan qirayaa in uu allah alle yahay maxamedna yahay rasuulkii alleh calayhi salaatu wasalaam wixii intaa ka dambeeyey cumar wuxuu dadka ugu yeeri jiray diinta islaamka ilaa ay gacantiisa ku soo islaameen khalqi aad u fara badan ilaah ha weyneeyo abaalmarinta cumar qabrigiisana allah ha nuuriyo aamiin saasay maasha allah asxaabtii diinta ugu soo dadaali jireen nebigana gaal iyo muslim buu soo dhoweyn jiray nasiixada markaa qofka kusoo dhoweysidna waxaa laga yaabaa qalbigii dagaalka iyo xiqdiga u socday saasuu ku bedelmay marka qofka markaa wanaajisid maasha allah wuu kasoo noqon karaa xumaantiisii marka ilaahay subxaana watacaala haynaga dhigo dad maaragtay alla subxaana watacaala dartiisa isku jecelo xaqa maaragtay u gudbiya insha allah wixii shar ah iyo dhibaato wadana ilaahay aan naga qabto ummadda muslimiinta isku mid maaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu